waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya waxa weeye in la soo gunaanooday wada hadalkii muddada socday waqti badan buu socday in la soo gunaanadana xaq bay ahayd waxaynu doonaynaa waxa weeye in Soomaaliland israacdo oo nabad ku wada noolaato oo wixii la tabanayo la iska shaafiyo oo la iska daaweeyo wada hadalkii shalayna si wanaagsan buu soo dhamaaday waana ku boobinayna labada dhinac wada hadalka waday aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inay hadalkii soo gunaanadeen waxa weeye ictiraafku isagu aad meeshiisa oo dadaal buu u baahan yahay laakiin waxa weeye Soomaaliland inay wada hadasho oo wixii wax tabanaya qofku doonay ha noqdee la qanciyo oo dhaqankii aynu lahayn waxa weeye in la isqanciyo oo la wada tashado oo ninka wax sheeganaya miiska soo fadhiisto oo qoriga la iska dhigo qalin lagu xisaabtamo marka waxaan u aragnaa guul u soo hoyatay Soomaaliland iyo guul u soo hoyatay dadka deegaanada degan dhibaatada badan loo geystay ka haray tacliintii iyo dhaqaalihiiba ka haray haddii maanta gruubka Khaatumo ay ku soo biireen way iska dhacaysaa kuwa kalena waa laga yaabaa dad badan baa caaridi doona meel dadku isuma wada raacaan laakiin waxa weeye ballantii uu madaxweynuhu qaaday gogashii uu ka soo baxay madaxweynuhu gogasho dhigayna waa taas burca lagu ballamay waxaan rajaynaynaa waxa weeye hadalkii inuu inta ku afko dhulbahanto dhalina ka soo qayb galo wixii harsanna halka lagu dhameeyo burco wixii kale la tabanayo dadku soo kordha laakiin waxa weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa wixii aan u joognay halka waxaan raadinanay marka waa xaq bay nagu tahay waad ogtiin oo baarlamaanku horena wada hadalka uu ayiday marka baarlamaanka la furana wixii qodobadii la soo saaray wixii aanu sida hadal qodobka maamul taadijinta xogaa waa yar fahamkeedu waa nagu yar yahay laakiin guddiga baanu weydiinayna waxa loola jeedo maamul taadijinta waa maamulku taadijisan ilaa wuxuu joogaa Xaysimo marka waxaanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa talaabo fiican hore loo qaaday waa sidaas oo lagu sii wado qof kasta ama bari ama galbeed qof kasta wax tabanaya in sida loo qanciyo loo wada hadlo miiska loo wada yimaado waa intii aynu suganay waana intii Soomaaliland ku dhisnay ku macaanamaashay waxa weeye waa dastuurkeenu muddo badan buuxinaa in la furo waa maaha bari qura waxa jira dad badan oo kale wada wax tabanaya dastuurkeenuna muddo badan buu jiray oo aan xitaa hal xaraf laga bedelin marka waanu qabnaa in dastuurka la furo cid kasta oo marka intaan la furina dadka oo dhan laga wada qaybkiyo laga tashado la yiraahdo maxaynu dastuurka furniinkiisu maxaa faa'iido inuu ku jirta waxa weeye marka cid kasta oo tabanaysa qof walba meel buu qodobka eegaya marka waxa weeye in dastuurka la furaa waa waajib oo wax iska taagan maaha waa in wax laga bedbedelaa marka laakiin waa inta marka hore laga wada hadlaa sababaha loo furayo iyo waxyooga la rabo qodobada la rabo in laga bedelo